بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال كسر وهذا ورك ساعد لها وأنا ذيك جسوا قد بتلفزيون كعالمي جايست 24 حرمتي سمى كلا المقدسة مدحونها دولتكم الجار كالصوماليا الشيخ شريف أحمد يسركيل كترسن دولتكم الجار كالصوماليا أيا كورمير يحرمها الدولة يقولها هيد مجلة المقدسة مدحونها يا جارين اسمها بعد لها لو يقانا يكوي على المدح حمروينه halkaasoo dadkii deganaa ay garikii dambe ee shalay ay ka guureen isla markaana ay ku wareejiyeen dawladda madaxweynaha ayaa soo kale ugu baaqay dadka ku harsan xarumaha dawladda in muddo kooban ay kaga guuraan maadaama xarumaha dawladda loogu adeegayo danta guud wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya ayaa ku baaqday in la gargaaro dadka naafada ah ee ku nool magaalada Muqdisho agaasimaha wasaaraddaasi oo leeyahay Daawud Sheekh Xamdaad oo shirkad ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa shaaciyay in ay muhiim tahay in la gargaaro dadka naafada ah ee ku nool magaalada Muqdisho kadib markii wasaaraddu dhawaan ay hirgelisay macad markaasi wax lagu qabanayo dadka naafada ah xisbiga ummadda Soomaaliyeed ayaa si weyn u soo dhaweeyay shirka lagu wado in bishan gudaheeda uu ka furmo dalka Ingiriiska gudoomiyaha xisbigaasi oo saxafiyiinta kula hadlayay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in shirkaasi uu yahay mid wada tashi ah oo u daneynaya sida uu hadalka u dhigay ummadda Soomaaliyeed isla markaana ka xisbi ahaan ay si weyn u soo dhaweynayaan shirkaasi ka furmaya dalka Ingiriiska gudoomiyaha ayaa soo kale ku baaqay in shirkaasi laga qayb geliyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed deeq lacageed oo ka timid jaariyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Talyaaniga ayaa la soo gaarsiiyay James Sheikh Moomin oo ah mulxamiista weyn oo Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Hargeysa kaasi oo in muddo ah ku xirnaa xabsi ku yaala magaaladaasi kadib markii la sheegay in mulxamiistaha uu dil u geystay nin rayid ah oo ku dhaqnaa magaalada Hargeysa taliska ciidamada AMISOM ee ku sugan magaalada Muqdisho gaar ahaan ciidamada Uganda ayaa maanta u dabaaldegay sanadguuradoodii 1 ee ka soo wareegtay markii xurmada ay qaateen waxaana dawladda Uganda ciidamada ka jooga Soomaaliya ay deeq u qaybiyeen dadka Soomaaliyeed ee dhibaatooyinka ku haystaan gudaha magaalada Muqdisho qodobada wararka dibadda ee warka saacadda mid kugu heynana waxa kamid ah daawadayaal dawladaha Iran iyo Israa'iil xiisada u dhaxeeya ayaa sii kordhaya ogayaha gaashaaniga ee dawladda Mareykanka ayaa sheegay inuu rumaysan yahay in Israa'iil ay weerari doonto dawladda Iran Israa'iil ayaa la sheegay in ay wado olole ballaaran oo ka dhana sidii ay weerar u qaadi lahayd dawladda Iran oo lagu tuumayo inay samaysato nuclear halis ah dawladda Israa'iil ayaa la sheegayaa inay weerari doonto dawladda Iran bisha Abriil ee nagu soo foolay guud ahaan saaxiibayaal warkii saacad laha oo idinkaga imaanayay telefishinka caalamiga S24 xaruntiisa magaalada Muqdisho inta ayuu ku leeyahay warkana waxa ay diyaarinayaa anigoo ah Mahad Cabdi Maxamed Mahad Shaakir tan inta dib u kulmi doono warkan mid ka xiga waxaan idinkaga tagayaa saasiyo nabadgelyo wassalamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh